ku soo dhawaada shanta wadan ee qaaradeenna Afrika ugu dhaqaalaha badan uguna hodansan. Marka ugu horeysa waxaan kaa codsanayaa saaxiib inaad nagu soo biirtid barnaamijkana noo share gareysid si uu u gaadho dad badan. kaalinta shanaad waxaa ku jira wadanka Morocco ama Maghrib hadba sida aad u taqaan weeye waa dalka shanaad ee ugu dhaqaalaha weyn qaaradda Afrika. Sanadkii 2022 dhaqaalaha wadankan ayaa ahaa 143 bilyan oo dollar. Waa marka la raaco cabirka GDP nominalka loo yaqaan. Wadanka waqooyiga galbeed ee qaaradda Afrika ku yaal ee nidaamka boqortooyo uu ka jiro ayaa 10kii sano ee la soo dhaafay sameynayay kobac dhaqaale oo 4% ah. Tirada guud ee dadka reer Morocco ayaa lagu qiyaasaa 37 milyan oo qof oo 99% ay muslimiin yihiin waliba sunni ah. sidoo kalena Morocco ayaa ah wadanka 11aad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. boqorka wadankan waxaa lagu magacaabaa Maxamedkii lixaad. caasimadda wadankuna waa magaalada Rabat, halka magaalada ugu weyn wadankani ay ka tahay magaalada Casablanca. Nambarka afraad ama kaalinta afraadna waxaa ku jira wadanka Algeria ama Jazaa'ir, waa sidaad u taqaanay waa mid ka mid ah dalalka ugu horeeya ee soo saara saliidda iyo gaasta qaaradda Afrika oo dhan. waana dalka afraad ee ugu dhaqaalaha badan qaaradda. waxaana lagu qiyaasaa dhaqaalaha wadankan ilaa 190 bilyan oo dollar marka loo eego cabirka GDP nominal. Algeria waxay si aad ugu tiirsan tahay dhoofinta saliidda iyo gaaska. tan iyo markii ay qaateen xornimadoodana waa 1962 waxay aasaaseen saldhig warshadeed oo aad u ballaaran. waana sababta ay u tahay wadanka afraad ee qaaradeenna oo dhan ugu hodansan. wadankan ku yaala waqooyiga Afrika waxaa ku nool dad ay tiradoodu gaadhayso 44 milyan oo ruux oo 99% ay sidoo kale muslimiin yihiin. sidoo kale wadankan Algeria waa wadanka sagaalaad ee ugu dadka badan Afrika oo dhan. caasimadda wadanku waa magaalada Algiers. madaxweynaha haatan wadankan xukuma waxaa lagu magacaabaa Cabdilmajiid Taabuun. South Africa ayaa ah kaalinta saddexaad ee Afrika ugu dhaqaalaha badan. kaabayaasha dhaqaale iyo warshadaha ku yaala wadankan ayaa la heer ah wadamada horumaray ee reer galbeedka. waana wadanka kaliya Afrikaan ah ee ka midka ah 20ka wadan ee warshadaha ku horumaray ee loo yaqaano G20ga. dhaqaalaha wadankan ayaa lagu qiyaasaa ilaa 411 bilyan oo dollar. wadankan ku yaal cirifka koonfureed ee caalamka oo dhan ayaa waxaa ku nool dad gaaraya ilaa 58 milyan oo ruux. Egypt ama wadanka lagu magacaabo Masar waa kaalinta labaad ama wadanka labaad ee ugu dhaqaalaha badan Afrika oo dhan. wadankan oo lagu magacaabo ama lagu naanayso hooyadii adduunka ayaa waxa uu caan ku yahay dalxiiska aadka u badan ee looga yimaado meelo badan oo kala duwan oo caalamka ah. dhaqaalihiisa waxaa lagu qiyaasaa wadankan ilaa 470 bilyan oo dollar. tirada dadka ku noolina waxay gaadhaysaa ilaa 108 milyan oo ruux. waana sidoo kale wadanka afraad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika oo dhan. Nigeria marka laga yimaado inuu yahay wadanka ugu dadka badan Afrika, haddana sidoo kale waa kan ugu dhaqaalaha weyn qaaradda oo dhan. tirada dadka ku nool wadankan waxay gaadhaysaa ilaa 230 milyan oo ruux. dhaqaalaha wadankana waxaa lagu qiyaasaa ilaa 570 bilyan oo dollar. waa wadanka Afrika ugu kaabayaasha adag marka ay dhaqaalaha noqoto. ilaha iyo wax soo saarka ugu badan meelaha ay ka helaana waxaa ka mid ah adeega korontada oo ay siiyaan dalalka la jaarka ah qaarkood. dhaqaalaha ugu badan ee wadankan ayaa ka yimaada gobolka Lagos ama magaalada Lagos oo ah magaalo ganacsiyeedka Nigeria. caasimadda wadanku waa magaalada Abuja. madaxweynaha gacanta ku haya xilka wadankanina waa Bola Ahmed.